السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاalahay aan jeclahay meel kastoo adduunka daafiisa ka joogtaan waa anigoo ah walaashiin Umu Huda halka ay iga daawanaysiin waa Umu Huda channel waxaan idin leeyahay cizi iyo caafimaad ku noolaada Ramadan Kareem aan idin leeyahay maanta Ramadan waa kow waxaan idin leeyahay insha Allah dhammaantiin Ramadan Mubaarak Ramadan Kareem ilaahay waxaan idin ka rajeynayaa dhammaantiin cizi iyo caafimaad inaad ku soontaan insha Allah cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahay kuwa cibaadadiisa guto inuu ilaahay inaga dhigo insha Allah maasha Allah maanta waxa weeyaan waxaan idin la qaybsanayaa afurkaygii marka insha Allah biidmillaah aan isla socono walaalahay aan jeclahay maasha Allah tabaarakallah qaxwa Soomaali sida aan wada ognahay qaxwada aad iyo aad ay u fiican tahay maadaama oo maxalin maanta oo dhan la soo soomanaa qaxwa insha Allah aan ku bilaabayna haduu ilaahay idmo darmuuskaas aan ku soo shubtay girgirahan haddii aad xasuusataan waa girgirihii Soomaaliya Afrika maasha Allah dabqaadkii intana waxa ay saaran duqadii marka hilibka maasha Allah aniga aboobis way waxa guriga ka sooman caruurta kala dhan waa yaryar yihiin marka maasha Allah anaga maan samaysanin ee ahayd maxaa la yiraahdaa fooliyo fara badan iyo waxa maan samaysan marka waxa iska doorbiday in aan maxaa la yiraahdaa ani asaga 8 xabba naga badan maadaama labadeena kaliya aan soomanahay waa waxa weey waxeena waa iska easy marka waxaan isiri maasha Allah duqadan yar baan insha Allah aan samaysanayna haduu ilaahay idmo maraq digaageeda filfishi xawaash hilibka iyo xawaajiye kale yaryar maasha Allah kullu marka insha Allah aan ku soo daray insaana u soo qalajinaya haduu ilaahay idmo waa kaas waa aragteen walaalahay way qalashay basasha kama badinayo insha Allah basal yar aan soo jarjaray ومدة عدانك يمدة جدود كي الله بدأ سكودر سن بس نكون داري دونا أنا قد قدينا بس إن شاء الله جيس رمنا أنا أصلا ما يسنا هدو إله إدمو صابته عرورته وحا معقولة إني دهان محل هذا وأباهن هو عنينا وكلام وانت جابني ناسي إنه أوجا أردن مركب فلفل أونلي أن قدر سني مركب ما شاء الله ولا عليها نجي عليها وكاس دقدي وكاس سوق قلجيي أو بسشين أنكو صدري ما شاء الله وحبس بس وكم بتشرو waxaan ku daray oo kale takamsarta oo qaleelka kadibna walaalahay aan jeclahay waa kana sambuski only 8 xabo isma badhib badna waxa way 2 xabo is saaree sambuska laakiin ma sha Allah waa weyn yani waxaan jeclahay sambuska aadka u waaweyn ma sha Allah sida aragtiin 8 xabo ma sha Allah aan ku soo gurtay halkan saliidiya ii saaran ma sha Allah haduu ilaahay idmo waxa weeyaan saliidaas aan ku soo guraya ma sha Allah sambus qurux badan insha Allah familka marka uu badan yahay oo zaid loo badan yahay ayaa waxay u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa fooliyada xoogaho la iska sii kala fududay way fiicnaan lahayd marka ma sha Allah saan aniga waxaan ku dhahay wax yar abo markuu shaqada ka soo baxay caruurta iga celinay maanta jimci ahayd hore u soo baxay yaa iga reebay kadibna danji kadan soo aaday ma sha Allah waan soo kala tuuro iska easy ilaahay ha noo fududeeyo jikada shaqada waxa weeyaan bisha Ramadan ma sahlana waxaan ku dhahay ilmihiina dhinacay guriga u joogan ayaga laftirkooda waxa way u baahan yihiin in dharigoodi gees loogu kariyo marka ilaahay noo fududeeyo dhamaanteen kuwa cibaadadooda caafimaad ku guta ilaahay naga dhigo hawshana Allah inoo fududeeyo walaalahay aan jeclahay marka ma sha Allah ma badhib badno 2 mar leema ku kala riday sida arkaysiin marka 2 mar baan ka soo kala dhigay wixii dhanba ma sha Allah saasay ku soo dhamaadeen kadibna waxa ii qasan haduu ilaahay idmo asagana aan rabaa in lagu qabsado mandaasi ama maxaa la yiraahdaa wax kale oo ma garanayo mandaasi baan u aqaanaa ma aqaan Soomaaligu iska far badan yahay asagana ma sha Allah halkaas maxaa la yiraahdaa aan qastay oo si qamiirinayay kadibna markaan ka dhamaaday waa kaasa mandaasigii ama burkii labadaas baan u garanayaa laba asagana 2 baartoon baan ka dhigi doonaa kadibna insha Allah waan soo fidinayaa haduu ilaahay ogolaado asagana waxaan ku qasay maxaa la yiraahdaa ukun iyo sokor iyo caano iyo cusbo yar iyo biyo yar oo diiran intaas aan isugu daray ma sha Allah saas uu ku soo baxay quruxda badan markaan soo fidfidiyay si loogu qabsado sambuska maxaa la yiraahdaa caruurtana ay isaga cunaan ما شاء الله إلا وحيسينا يعني ولا سوميه ليهين مرك ما شاء الله أصدق حوجه وان بديي مرك ما شاء الله ولا لها أنجع لهاي إله نوفذ قاب كاسة أنصو شرشري إن محل هذا إن من داسيجا كدبنا إن مكينة داسيرة وحن ربعنا هيل كي أنكشيتو إن محل هذا
maasha allah fududeyso waay anima hadda kahor mooyaan ku tuman jiray maasha allah laakiin makiinadana maalin dhawaad soo iibiyey koodiyaan kasoo gada dukaanka la yiraahdo maasha allah xawaajigina halkaas isagana sidoo kale waa isku ridqayaa marka walaalahay aan jeclahay wakaasa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran Umahooda channel waa idin salaamaya walaalkiin Xuseen maanta waa Ramadaan kow waa maalinta koowaad bisha Ramadaan 24 bisha afraad maasha allah maxaa idin haynaa maanta horta marka hore waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ramadaan kariim Ramadaan mubaarak meel kasta joogtaan kusoo dhawaada Ramadaanka والله ما أنتم حقولنا أنا جوجي إنه مقالدي إنه إسكت جنا رمضان كنا ما قبل شلي ما أنتم رمضان كوها أنا مقالدي إنه قوي وحقولنا الشقة كل اللي ما كل مين حافظ هذه ما سعدي ود بي وحقولنا لونتي كلها نحصل مننا إن شاء الله سلسوا عنينا حاس قضية إن رأينا كعاوية وما دام الشقة بدنتها بيشبرة كيسن إنت أنا أودو أن سميكر إن شاء الله إن سعادة أودو بمركي إنت أفرق له فريسن إن شاء الله إن كعاوي ريرك سقطية إن شاء الله وأركض وأنت وحنا قبض إن شاء الله walaalahay aan jeclahay markii aan ka dhamaaday jikadii maasha allah aboo waa asna soo galay xaaji xuseen aa dhinaciisa iga caawinayay wixii fruitis ah khayr allaha siiyo in la iscaawiyo waa muhiim sababtoo ah hooyo sooman oo ayadana maxaa la yiraahdaa caruurtii inta maanta dhan yac ka dhahaysay xaaladdu ma sahlana in la iscaawiyo waa muhiim khayr allaha siiyo dhinaciisa iga caawinaya fruitkaas oo dhan u jarjaray maasha allah qaybta fruitisku noo qaabilsan yahay iyo miiska geyntiisa marka maasha allah in la iscaawiyo aad iyo aad ay muhiim u tahay markii family yahay maasha allah marka walaalahay aan jeclahay annaga wax badan ma sameysanayno insha allah intaasaan idila wadaagayaa fruitiskaas iyo maxaa la yiraahdaa sambuuskaas iyo mandaasigaas iyo qaxwadeena yar aan isku qabsanaynaa markii oo la sooman yahay sida aan wada ognahay wax badan caloosha ma qaadanayso maalinka ugu horeysana ay tahay xaaladdu waxa weeyaan waa bariga dhexe ilaahay inoo fududeeyo maanta dhan jirkii u bartay biyo badan in la cabo maxaa la yiraahdaa cunto la cuno maasha allah training la siinayaa marka walaalahay aan jeclahay waxaan idin leeyahay kulligan ilaahay inoo fududeeyo fruitskaasaan jarjarnaynaa maasha allah aad uu muhiim u yahay sababtoo ah maadaama wax kale aan la qaadan karin wax software inuu galo sambuuskii saliid lagu sameeyey burki saliid lagu sameeyey haddana haddaa baasti iyo bris aan kasii daba cuno aad tiraahdo xaaladdu waa iska maasha allah marka maxaa la yirahdaa fruitskaas annaga aan dhexgashanaynaa annaga fruitska aadaan u jecelnahay kolley idinkana sidoo kaleetaan rajeynayaa fruitska in laga faa'iideysto marka maasha allah walaalahay aan jeclahay marka jikadii waa laga dhamaaday xuseen iyo maasha allah nihaal way ka baxeen jikadii nihaalna dhinaceeday naga caawinaysay ayadna hana yar ay haysay kulli hal is wada caawiy waa familka kadibna aniga waxaan sameynayaa guriga kala dhan waan kasoo dhamaaday dabqaadka haddaan idin tusayay guryahan uunsi kusoo shidayay maasha allah marka walaalahay aan jeclahay si markii aan afuro oon afurka u fariisto howl badan aysan iigu sii oolin oo weelka kaliya miiska saaran ku afurnay aan ugu soo guro qasaalada weelka jikadii aan iska nadiifinayaa jikada dhulkeeda aan iska masaxayaa marka maasha allah shaqada haddaadan easy aad kasii kala dhigan iska sii kala baangeyn way adag tahay maanta aldiyaan aaday koobkaasaan idin tusaayo waa la soo jebiyey insha allah ha laga faa'iidaystaa idin leeyahay maasha allah koobo badan oo ubaxa lagu rido hore waan u haystay laakiin horaan iskaga soo qaatay flowerkaasna waan soo iibsaday ubaxaasna hore u soo gatay marka maasha allah jawi degan hawsha in la iska kala fududeeyo adi aan nasato kadibna waxa weeye markaad afurto kadib cibaadadaada biyaha hadday kugu dhacaan lama istaagi karo sidaan wada ognahay marka la iska cibaadeysto haddaa quraan akhrisanaysid haddii maxaa la yiraahdaa salaad aad dukanaysid maasha allah in aad maasha allah wix iska sii kala baangeysa aaday u fiican tahay marka walaalahay aan jeclahay waxaan idin leeyahay insha allah hawsha hala iska kala baangeeyo waa dhiirigelin intaas insha allah si aad beri markaad soo toosto kaleeto maxaa la yiraahdaa aysa waxba aysa kugu aalin oo maalinkaas oo dhan ilmihii aad maxaa la yiraahdaa ayagana waqti geesay kaa rabaan aad caawinaadooda aad u siiso marka insha allah waxaan idin leeyahay shaqada insha allah aan iska kala baangeyna hadduu ilaahay idmo walaalahay aan jeclahay maasha allah caruurta yaryara waxaan ku iri waan ka saarnay fadhiga already ayaga xaqoodi waa la siiyey maasha allah waa la cashay siiyey
only waxay diyaar u yihiin intaana lasoo eedaamin kadib inay sariirahooda iska wada galaan hadduu ilaahay idmo. marka maasha allah fadhigan uunsiga usoo qaaday. marka walaalahay aan jeclahay insha allah ilaahay hawsha haynoo wada fududeeyo, hawsha aan iska kala fududeyno hadduu ilaahay idmo. walaalihii jeclaa maasha allah oo maxaa la dhahay walaalo badan oo luuqa iga soo weydiiyaa jiray oo idhahay umuhuda maxaa la yiraahdaa rabadaanta maxaa way nadaafada noo soo badi. haddii ay suuragal noqoto aniga waa idinka jeclahay insha allah inaan idila wadaago intii karaankayga ee awoodayda ah. dhuxushaas aan idin tusaa insha allah iyadana turkida kasoo iibsada haddii dabqaad aad haysato kaleeto si aad uunsiga ugu shidato. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.